ninkaas ayaa ama gamaanyooday mar uu madaxweynaha meel shir ku hay ayuu ku gamaanyooday kadib isla markii ayuu wuxuu ku xukumay dil toogasho bartii ayaa laga qaaday dibna looma soo celin oo waa la toogtay sanadka markuu ahay 2015 heerkaas yaa gaari karo oo darajadaas heli karo عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالقة وولاشين زيو إذن الله أنا وعفمات قوايا إنكم إيه عفمات قبتين أنت إنا حنوصا ربي سبحانه وتعالى إنه عافية أنت إنا عفمات كهسة الله سبحانه وتعالى وزياديو أنت إنا قد مطين إلهيها ونحرستو أنتنا بضوات قاني ودنك وقوية كوريا إيه مدحويني هو دبو ومدحويني سدحات إيه ودنك الصومر أوغي إيه أبي إيه الصغر kaasi oo lagu magacaabo Kim Jong ayaa wuxuu yahay madaxweynaha Korea madaxweynaha ugu da'da yar ee basoomar adduunka da'diisa saxda ilaa iyo hadda lama hayo dadka qaar ayaa waxay dhahan waa 30 jir badankoodan waxay dhahan 30 ka xataa ma uusan gaarin xataa hadii aad ka raadiso Google-ka ama internet-yada kuma arkaysid da'diisa saxda taasi asiga ayaa ka dambeeyo si aan loo ogaanin da ahaan inta aan madaxweynimo loo dooranin ayuu wuxuu dil shirqool ee ku dilay walaalkiisa kaasi oo ka xigay kursiga madaxweynimada madaxweynahaas ayaa ah ninka ugu doqonsan ee adduunka waayo wuxuu si bareer cad u toogtay wasiirka tacliinta kaasi uu ka dareemay sidoo asiga sheegay mar meel shir loo joogay hortiisa in uu soo fadhiistay una fadhiistay si qaab daran ama si aan qurux badnayn waa sidoo asiga u arkay in uu ninkan bajees oo u fadhiyo kadib shirkii markuu dhamaaday ayuu toogasho bareer cad ku fuliyay 2016 ayuu wuxuu soo rogay qaanuunkaas oo ahay in gabi ahaan aan bal qosli karin qaanuunkaas ee waxa ka soo horjeestay adduun weynaha laakiinse wadankiisa dhexdiisa iyo shacabka oo u taliyo wax ka soo horjeestay loo kama jiraan oo wax walba oo soo jeediyo waa in xaadir la dhahaa loona dhaqmaa intaani in ka badan boo kala soco fiidiyogan haddii hore ila joogteen waa ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelka waa channelkaaga subscribe dheh ha iska iloobin in aad furto gambaleelka si uu ku soo gaaro wax walba aniga aan soo dhigo dad badan oo idaawado haddana aan subscribe ahaan please waxaan idinka codsanayaa in aad subscribe saartaan si aan u gaaro guusheyda ina saara like si aan u dareemo aan u ogaado wixii aan idin soo gudbiyay in aad ka hesheen waana ku mahadsantihiin qaanuunyada wadankaas ka jiro kuwa ugu yaabka badan ayaa waxay yihiin telefonkaaga imaan karin banaanka adigana aad wici karin banaanka kaba soo qaad hooyo muddo badan wiilkeeda banaanka ku maqnaay kadib soo wacay hooyo sidee tahay fiican oo kaliya la isdhaafsaday haddii isla markaas loo imaado lagu xiro laguna toogto maxay sameysay oo dambiya isla dhacdadaas oo kale waxa ay dhacday 2007 nin soo wacay saaxiibkiisa kadibna salaamay isla markiina loogu soo galay guriga markii la xirayne lagu xukumay dil toogasho waa madaxweynaha ugu waalan adduunka mana jixinjixo sidoo kale waxa ka jiro TV-yada guriga yaalo lagama daawado filmo banaanka haday ahaalahay musalsal ama film Mareykan waxa kaliya oo laga daawadaa waa akhbaarooyinka dawladda meel walba asaaritid waxa loogu hadlayaa madaxweynaha warkiisa ama amaantiisa taas ayaad fiirsanaysaa haddii aad banaanka u baxdo soo iibsatid journalkaas kama helaysid akhbaaro ama waxyaabo dhaceen kaliya waxa la ku xusan madaxweynaha hadaladiisa oo kaliya haddii lagu arko flash ama memory ee kuugu sii jiraan film Mareykan ama hees Mareykan waxaad gashay dambiga ugu weyn ee wadankaas taasina waxa halis ee u tahay nafsadaada waa dil toogasho oo kaliya waayo
magaca American ama Mareykan meeshaas kamaba shaqeeyaanbo dhanka kale oo ka jira wuxuu yahay haddii aad dalxiiso tahay waxaad ku deganaysaa hotel lagu magacaabo Yankado International Hotel kaasi oo leedahay dawladda mar alla marka diyaaradda ka degtid ayaa waxa lagu siinayaa buugaas oo ku qoran qawaaniinta idil oo wadankaas loogu dhaqmo hotelkaasna afartiisa barji waxa joogan security adiga waa lagu soo qaadaa hotelka lagu geenay mar ayaa waxay dhacday nin ka dhashay wadanka Mareykanka in uu u tago dalxiis ninkaas Mareykanka goobtii oo ka degi lahaa markii la geeyay ay wuxuu ku dhaqaaqay fal ama dambi oo noloshiisa ka shalaayay ninkaas barti uu ku degay markii la geeyay ay wuxuu la kulmaybo noloshiisa dhibaato oo ka shalaayay taasi oo adduunweynaha dhan oo ugu hor calaalay asigoo dawladda cafis weydiisanayo dawladdiisa Mareykankana ay wax u tari weysay dambigaas muxuu yahay ayaad isleedahay daawade isla ninkan ayo mar asigoo dhaxmarayo hotelka uu deganay ay wuxuu arkay looxooyinka darbiyada la saaro mid jilicsan ama dhinac u jiifto markaas ay wuxuu ku fikiri toosi eena ka sii tag mar alla markuu toosiyo iska baxay ayaa kaamirooyinka security waxay soo qabteen asigoo looxa toosinayo isla markii ayaa loo yimid waana la xiray qaab xun ayuu kala kulmay xabsiga dhexdiisa wixii u dileen si aan caadi ahayn jirdilka in uu u adkeysan waay ayaa waxa loo dalbay saxaafadda u hadasha afka dawladda kadib ayuu wuxuu codsaday cafis in uu ka shalaayay waxa uu sameeyay dawladdiisa ayaa ninkaas wax u qawo weysay cabsida laga qabo madaxweynahaas ama wadankaas meesha ay gaarsiisan tahay waa muwaadin Mareykan oo si xun loo bahdilay madaxweynahaas ayaan wax jixinjix u haynin dalka America taasi uu aaminsan yahay in ay lugtiisa hoostiisa ku jiraan isla America ayaaba aad ugu baqato oo muwaadin iska dhaafay xataa wax walbo la sameeyay aan ku soo degdeginbo in ay ka hadlaan ninkii markii uu dawladdiisa iyo adduunweynihii ka dalbaday in cafis loo fidiyo dawladdii oo haysatay iyo dawladdiisaba in uu ka dalbado cafis dambigana uusan u laaba doonin kaas jirdilka ay u geysteen ayuu aad ula xanuunsaday kadib waxaa la dhigay dhakhtar waa jugta loo geystay ayuu wuxuu la galay dhakhtar dawladda Mareykanka ayaa wada hadal dheer waxay ku qaadatay si ay ninkaas ugu soo celileed wadanka muddo la eg 2 bilood kadib ninkii ayaa waxa soo cafiyay madaxweynaha waqooyiga Korea wuxuu u soo diray wadankiisa asigoo wali xanuunsan isbuuc ma aysan ka soo wareegin markuu Mareykanka imaaday ninkii wuu geeriyooday isla madaxweynihii Korea 2 bil uu dhakhtarka ku jiray wixii daawo ku baxay ayuu soo qortay wuxuu u soo diray madaxweynaha America wuxuu u soo raaciyay lacagtaas hadii la soo bixi waayo wixii ka dhaco waa la arki doonaa isla America ayaa qalqashay oo isla markii si degdeg ay ku bixisay lacagihii uu soo dalbaday waxa mamnuuc ka ah meel oo madaxweynaha ku qudbeenayo ama uu joogo in wax yar aad ku gamaaniyootid wax yar gamaayo in ay ku gasho ama aaba hurudid hatta in dhahayga meel kale ayuu hayaan hadii la arko way ku dhamaatay daraasad la sameeyay ayaa waxa la ogaaday qofka bini'aadanka hadii uu meel fadhiisto ama uu istaago waqti dheerna uu meesha taagnaado in uu soo dul qaadi karin ama gamaanyoodo ama uu hurdo hatta in uu iska fikiro iska maqnaado qofka ileen waa bini'aadan waxyaabo badan ayaa ku xirxiran ninkan agtiisa ayaa waxa mamnuuc ka ah intuu asiga qodbeenayo ha noqoto 6 saacadood hatta in aad gamaanyoon karin ama aad fikiri karin oo يعني مسكحة هذا إنتهى وإن أصيغ حيان وزير كي هراء الدفاع ضلك اللجوم جعابي جري هيونغ جون
ninka magaciisa oo igu adkaaday waa kasa hadii aad si fudud ku akhrisatay asigoo af Soomaali ee kumandiga igu la wadaag ninkaas ayaa ama gamaanyooday mar uu madaxweynaha meel shir ku hay ayuu ku gamaanyooday kadib isla markii ayuu wuxuu ku xukumay dil toogasho bartii ayaa laga qaaday dibna looma soo celin oo waa la toogtay sanadka markuu ahay 2015 heerkaas yaa gaari karo oo darajadaas heli karo qof madaxweynaha jecel ama aad ugu dhow asigoo darajadaas gaarsii haddana si fudud uu ku dilay meel yar oo ku gamaanyooday oo kaliya bal u fiirso waalidaas intaas la eg kaliya waxa qabo madaxweynahaas oo kaliya isla qaanuunkana asina wuxuu yahay fad ama hafadin waa lagu fadsiinaa rab ama harabin waa lagu rabsiinaa qaanuunkan ayuu wuxuu yahay madaxweynaha familkiisa iyo xukuumadda oo idil askarta waa in aad ixtiraamtaa oo weli mid qasaba ma jiro ama kama shaqeeyo qof siyaasi adiga aad nici kartid ama fikirkaaga aad isdhigi kartid maba wanaagsanaba mid kasta waa in aad qasab ku ixtiraamtaa hooyo ayaa la xiray kadib markii dab gurigeeda ka dhacay ee ka soo badbaasatay caruurteeda maxaa isleedihiin hooyadaas in lagu xiray hooyadaas ayaa waxa lagu xiray markuu gurigeeda dab ka qabsaday ay isla markii waxay u naxday caruurteeda kana soo badbaasatay dabkii meesha ka jiray meeshii dadkii yimaadeen ayaa wax ay arkeen in uu sawirka madaxweynaha surnaa guriga hooyada kadibna uu gubtay hooyadaas ay ciqaab aad u xun kala kulantay sawirkaas dabka qabsaday taasi oo dambigeedu uu noqday intaysan caruurteeda badbaadinin ay ahayd in ay sawirka badbaadiso waxa kaliya oo ciqaabta ay u mudatay ay wuxuu noqday badbaadinta caruurteeda ka soo tagista ama hilmaamista sawirka taasi ay waxay noqonaysaa waali aad u xun waayo hooyo waa dareemi kartiin dib aragtay oo haddana naf badbaasatay laguna qabsaday warqad maxaa u badbaadis ilaa sawirka waa warqaday madaxweynihii meesha ma joogay taasi ay micnaheedu waxay tahay madaxweynaha iyo familkiisa in aad qasab canag ama mid qasab kugu ah ixtiraamkooda gabi ahaan bartaas ayaa haddana waxaaba mamnuuc ka ah diin masiixi ama diin ay diin ama diin muslim mar ayaa waxay dhacday banin lagu magacaabay Jeffrey Vow kaasi oo ahaan Christian buug uu watay oo buug diintooda ah ayuu wuxuu ugu dhaxtagay meel oo xamaam ahaan u galay kadib asigu ku iloobay meeshii waa la balaqay ama waa la soo sheegay oo isla markiiba waa la soo qabtay ninkii isla markiiba waa la dilay sababta loo dilay maxay tahay in uu buugaasad oo meesha u dhigay si oo qof u akhristo oo yani isdoo diintan bartijaabi bal fiiri galbal kii ku kala u sii gudbi kii kala ku kala yani taas ee loo fahmay in uu ninkaaniti faafin uu waday inta in la egbo way ka jiraan wadankaas hadii aad ka heshay kumandiga igu la wadaag leegtana isaar waan soo badi doonaa hadaa hore ila joogtay waa ku maasan tahay daawashada fiidiyogan hadii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelkaaga subscribe deh ha iska iloobi in aad furto gambaleelka si uu ku dhaafin wax walba aniga aan soo dhigo leegta waa muhiim ee ha iga iloobin kumandiga mar walba waxaan ku dhahaa waa adiga ra'yigaaga soo qor anigan aan arko waa ii dhiirigelin waa ziyo oo kule is xisaabi inta aan lagu xisaabinin ka hor